kusoo dhawow Qaraax Tube fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. kulankii muhiimka ahaa ee London Derby ayaa ku dhamaaday 5 iyo 6 rigoorooyin ah oo ay ku kala baxeen Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea. kooxda kubadda cagta Gunners ayaa sameysay bandhig la yaab leh ciyaarta qaybteedii labaad, halka Chelsea qaybtii koowaad wacdara fiican uu soo bandhigay tababarahooda Mauricio Sarri. qaabka Chelsea ma xuma sababtoo ah shaxdooda aad ay u fiican tahay, waxayna u muuqdaan koox xilli ciyaareedka soo socda si niyad leh ku ciyaari kara horyaalka Premier League. Antonio Rudiger ayaa gool u dhaliyay kooxda Chelsea, sida ayaa lagu kala nasay qaybta koowaad ee ciyaarta, balse dhamaadkii ciyaarta 90-ka saddexdii lagu daray oo dhamaad ah kubaddu Ozil ka soo shaqeeyay waxaa dhaliyay Alexandro Lacazette. ciyaartan waxay ku dhamaatay 1 gool iyo 1 gool. labada kooxood ayaa ugu dambeyn ku kala baxay rigoorooyin, waxaana rigoorooyinka ku badiyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal 5 iyo 6 rigoorooyin ee ciyaartu ku dhamaatay. kulankan ayaa ahaa ICC Cup, si kalena London Derby labada kooxood waa istijaabiyeen mana xuma bandhigooda marka la fiiriyo. Chelsea waxay isku diyaarinaysaa kulanka Axadda ay Man City la ciyaari doonto ee tartanka Community Shield-ga. sidaa darteed tababar Mauricio Sarri ayaa badi ciyaartooydiisa qaar ka saaray ciyaarta. waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaabin like iyo share kadibna inaad daado subscribe. mahadsanid.